Nabad daawadayaal halkaad nagala socotaani waa Xoghays TV xarunta dhexe uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Warkana waxaa idinla socodsiin doona haddii uu eebbo ogolaado anigoo ah Nuuruddin Maxamuud Ibraahim. Haatana ku soo dhawaada warka madaxdiisa. Beirut waxaa lagu qabtay munaasabad loogu duceynayo dadkii ku dhintay qaraxa dagaalkii ka dhacay xabsiga dhexe ee Muqdisho. Tirada dhimashada oo gaartay 19 qof. Cudurka coronavirus talaalka Ruushka uu soo saaray oo hadda la siin karo qofka qaba COVID-19. Trump oo lala cararay kadib markii qof lagu toogtay meel u dhow aqalka cad. Aan ku bilaabnay sidaad horeba u maqlayseen, waxaa korodhay tirada dadkii ku dhintay dagaalkii shalay ka dhacay xabsiga dhexe ee Muqdisho, iyadoo gaartay 19 qof sida uu sheegay afhayeenka ciidanka asluubta. Maxaabiista waxaa ka dhintay 15 qof, waxaa dhaawaca 7 askar, waxaa ka dhintay 4 askari, waxaa dhaawaca hal ayuu yidhi afhayeenka ciidanka asluubta Cabdiqani Maxamed Qalaf. Siihayaha xilka Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mahdi Guuleed ayaa magacaabay guddi ka kooban 6 xubnood oo baaraya sababta keentay iska horimaadka dadka badan ay ku dhinteen ee shalay galinkii dambe ka dhacay xabsiga dhexe ee Muqdisho, iyo sida ay u suurto gashay in koox maxaabiis ah inta ay hub qaataan kadibna ay dagaalamaan. Warqad ka soo baxday xafiiska Kusimaha Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa lagu sheegay in guddigan la faray in muddo 10 cisho gudahooda ay ku soo gabagabeeyaan hawsha baaristeeda. Haddana waxaa socda baaritaankaas oo la xiriira falkaas, habkii uu ku dhacay iyo sida uu u dhacay. Waxaan rajeynayaa in la soo gabagabeyn doono baaritaankaas. Waxaan kaloo rajeynayaa cid allaale ciddii arrintaas fududeysay in hubkaas ay gacanta u galaan nimanka oo rabshadaha halkaas ka kiciyay. Waxaa lagu qaadi doonaa sharciga, waxaana la horgeyn doonaa sharciga, ayuu yidhi Wasiirka Cadaaladda Xasan Xuseen Xaaji Jaamac oo la hadlay telefishinka dowladda Soomaaliya. Su'aalo badan ayaa la iska weydiinayaa sababtii horseeday dagaalkii dhimashada iyo dhaawaca sababay ee shalay ka dhex maray ilaalada xabsiga dhexe ee Xamar iyo qaar ka mid ah maxaabiista. Ugu yaraan 10 ruux oo la soo tabiyay inay halkaas ku dhinteen ayaa isugu jiray maxaabiis iyo ciidanka asluubta ee xabsiga amniga sugayay. Wasiirka Cadaaladda ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji oo ka hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in la baadhayo sida hubku ku galay gacanta maxaabiista. Waxaa socda baadhitaan la xiriira habkii uu falkaas ku dhacay iyo sida uu u dhacay, waxaana rajeynayaa in la soo gabagabeyn doono baaritaankaas. Waxaan kaloo rajeynayaa in cid walba oo fududeysay hubkaas uu gacanta u galo nimankaas rabshada kiciyay, laguna qaadi doono sharcigana la horgeyn doono. Abukaate Xasan Xuseen ayaa intaas ku daray in dhowaan shacabka loo soo gudbin doono natiijada baaritaankaas. Wasiirka Cadaaladda si rasmi ah carabka ugama uusan dhufanin inay jiraan dad fududeeyay in maxaabiista gacantooda uu hubka u galo, laakiin wuxuu sheegay in la baadhayo arrintaas. Hoggaanka ciidamada asluubta ee Soomaaliya ayaa dhankooda faahfaahin dheeri ah ka bixiyay dagaalkii khasaaraha geystay ee shalay ka dhacay xabsiga dhexe ee Muqdisho. Maxaabiis ayaa qori la qabsaday askari. Taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya Jenaraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa sheegay in wax walba ay ka bilowdeen maxbuus qori la qabsaday askari. Maxaabiistii shaqeynaysay oo gudaha ku jirtay, gaar ahaan kuwii raashinka karinayay, ayaa waxay qori la qabsadeen askari waardiye ka ahaa oo gudaha kula jiray, hawshana la waday. Nasiib wanaag, si fudud ayuu qorigu gacantooda ku galay, kadibna waxay bilaabeen dagaal, ayuu yidhi taliyuhu. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu intaas ku daray mar haddii gudaha xabad ka bilaabantay, dagaalkii wuxuu sababay dhimasho iyo dhaawac. Isla markii waxay boobsiiyeen askari labaad oo kor saarnaa. Markii ay toogteen ayuuna soo dhacay askarigii, sidaas ayuuna qoryihii gacantooda ku galay. Waxay noqdeen labadii qori ayaynu ku dagaalami galeen. Ciidamada amniga oo howlgalka la fuliyay xabsiga dhexe ayaa markii dambe ku guuleystay inay qalalahaas soo afjaraan. Afhayeenka Wasaaradda Warfaafinta Ismaaciil Mukhtaar ayaa sheegay in 6 ka mid ah maxaabiistii dagaalamaysay ay halkaas ku dhinteen, halka 6 kale la dhaawacmay, 4na la qabtay. Ilo xogaal oo BBC-da
u waramay ayaa sheegay in ugu yaraan 4 ka mid ah ilaalada xabsiga oo ka tirsanaa ciidanka asluubta ay ku dhinteen dagaalkaas. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in la xoojin doono hanaanka lagu sugo amniga xabsiyada. Wasiirka Cadaaladda ayaa xaqiijiyay in haddaba la bilaabay hab raacyo hor leh oo lagu ilaalinayo xabsiyada. Master Trump ayaa wariyeyaasha u sheegay inay u muuqato in haatan xaaladda la xakameeyay. Trump ayaa shirka jaraa'id laga saaray kadib markii arrintani dhacday, balse wax yar kadib ayaa dib u soo muuqday kadib markii uu ka mid ahaa ilaaladiisa ee goobta shirka jaraa'id uu soo hogaaminayay. Waxaa la maqlayay Trump oo odhanaya maxaa dhacaya markii uu kasii dhaadhacayay qolka shirka jaraa'id. Madaxweynaha oo ku guda jira shirka jaraa'id ayaa waxaa kasoo dhex galay mid ka mid ah ilaaladiisa, waxa uuna dhegta ugu sheegay dhacdadan. Markii uu dib u soo laabtay 9 daqiiqo kadib, madaxweynaha ayaa wariyeyaasha u sheegay inuu aaminsan yahay in ilaalada qarsoon ay toogteen qof hubeysnaa oo laga shakiyay. Waxa uu sheegay in qofka cisbitaalka la geeyay dhacdada kadib. Master Trump ayaa garwaaqsaday inay ahayd xaalad aan caadi ahayn, balse waxa uu ammaan kala dul dhacay ciidamada ilaalada ee qarsoon. Dhanka kale, ciidamada qarsoon ayaa sheegay inay xaqiijiyeen in mid ciidamadooda ka tirsan uu qof ku toogtay wadada 17aad ee aagga